wafdigan uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka badda kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xasan Maxamed Cali Gaafadhi ayaa kormeer ku tagay deegaanada xeebta gobolka Salal ee magaalada Saylac waxaana ujeedada kormeerkan shaqo ee wasiirku ku soo maray deegaano badan oo ku tirsan xeebta gobolkaasi Salal uu daarnaa sidii uu xoogaal ugu noqon lahaa xaaladda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin kalluumaysatada gobolkaasi Salal gaar ahaan kuwa magaalada Saylac isagoo wasiirku kormeerkiisan mid isu dul taagay goobaha loogu talagalay qaboojinta iyo hagaajinta kalluunka iyo waliba mashaariic horumarineed oo loogu talagalay kaabista adeegyada kalluumaysatada u baahan tahay wuxuuna warbixino kala duwan ka dhageystay mas'uuliyiinta hay'adda Fair Fishing oo imika gacanta ku haysa xarunta baraf dhaliyaha iyo qaboojiyaha kalluunka ee magaaladaasi Saylac wuxuuna mas'uuliyiintaasi kula dardaarmay inay dardar galiyaan hawl socodka shaqada kalluumaysatada gobolkani Salal ay u hayaan sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in xaruntani kaydinta iyo qaboojinta kalluunka ee magaalada Saylac maadaama ay hay'adaasi Fair Fishing muddo badan ay gacanta ku haysay ay xukuumaddu dhawaan la wareegi doonto xarumahaasi halka geesta kalena wasiirka wasaaradda kalluumaysiga khayraadka badda iyo xanaanada xoolaha jamhuuriyadda Soomaaliland kulan isxog waraysi oo la qaatay iskaashatada kalluunka Tawakkal ee gobolka Salal isagoo kula dardaarmay inay laban dadaalka buu yiri loogu jiro taabagelinta qorshaha wax soo saarka iyo ka faa'iideysiga khayraadka badda dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana wafdigan uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xasan Maxamed Cali Gaafadhi kulan ay albaabadu u xidhan yihiin ay la yeesheen maamulka gobolka Salal oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolkaasi taliyaha ciidamada badda ee gobolkaasi isuduwaha xanaanada xoolaha iyo sidoo kale kalluumaysiga gobolka Salal waxayna kulankaasi diiradda ku saareen sidii ay wada shaqayn buuxda u yeelan lahaayeen dhammaan laamaha heer gobol heer degmo ciidanka ilaalada xeebaha gobolkani iyo sidoo kale iskaashatada kalluumaysatada gobolkani Salal intaasi kadib wafdigan uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xasan Maxamed Cali Gaafadhi oo ay ka mid yihiin agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Cali Xuseen Nuur iyo saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha waxay kormeerkoodan ku soo mareen jasiiradda bilicda san ee Sacaadadiin iyo sidoo kale ceebaada halkaasi oo ay kula kulmeen kalluumaysatada waaweyn ee iyagu haysta ruqsadda kalluumaysiga badda Soomaaliland waxayna kalluumaysatadaasi ay ka xog warrameen qaababka ay shaqo maalmeedkoodaasi u gutaan ugu dambeyntii wafdigan uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha Soomaaliland waxay safarkoodaasi uga sii anba qaadeen deegaanada Lughaya Sabab Wanaag El Sheekh iyo sidoo kale Bullaxaar oo dhawaan xoolo dhaqatada deegaanadaasi ay xoolihii ka marisay duufaantii xoog badneed ee ka dhacday gobolka Salal iyo sidoo kale Awdal waxayna wafdigu xoolo dhaqatada deegaanadaasi kala sheekaysteen qaababkii ay ugu shaqeeyeen kooxihii caafimaadinta xoolaha ee wasaaraddu dhawaan ay u soo dirtay deegaanadaasi iyaduna ay dadweynuhu kaga dareen celiyeen xaaladda guud ee caafimaadka xoolahooda inay waqtigani wanaagsan tahay Cabdiraxmaan Saylici magaalada Hargeysa.